السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجka Hello Waqooyi Bari wadinka imaanayo studio dhexe RTN oo yahay magaalada Nairobi. barnaamijkana waxa maalin walba oo Sabti ah isbuuc walba si toos ah idin la socodsiiya anigoo Xamza Maxamed. barnaamijkani Waqooyi Bari Kenya wuxuu ka hadlaa kaliya arrimaha ku saabsan gobolka Waqooyi Bari Kenya oo marxaladooyin kala duwan soo maray iyo sidoo kale haddaba ku sii jiro ee dhibaatooyin iyo khalalaaso aan weli la xalinin dhibaatadooda ay weli muuqato dhaawacyadooda ayaa weli ka jira. barnaamijkan wuxuu gaar siinayaa ama uu ka hadlaa inta badan maalin walba maalinta ugu dambayso dhacdooyinka ka dhacay gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ay Soomaalidu leedahay. aan iraahdee gobolkani oo ah gobolka labaad ee ugu weyn dalkani Kenya ayaa ilaa haddani waxa ka muuqda waxyaabo badan ama boogag badan oo aan weli xalkooda aan la helin iyo sidoo kale dayacnaan iyo dhibaatooyin weli dhanka hoggaanka iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee ku nool gobolka ayaa u muuqda iyaguna in ay dhankooda leecitaan hoose uu ka sii muuqdo. barnaamijka waxa qayb ka ahaan doona aan iraahdee sidoo kale daawadayaashana sharafta leh iyagoo soo wacayo nambarka shaashadan idin saari doono idinkoo ka qayb qaadanayo barnaamijka oo ra'yigiina ka dhiibanayo sidoo kalena madaxdiina halkan kala hadli karo ama fariin uga jeedin karo. sidoo kale waxaanu idin leenahay barnaamijka Hello Waqooyi Bari Kenya ku soo dhawaada mar labaad. soo laabasho wanaagsan. barnaamijkii waa Hello Waqooyi Bari Kenya xasuusin mar labaad aan idin subinaya qodobadii aan ka soo hadalnay isbuucyadii dambe waxay kamid ahaayeen amniga, waxbarashada, siyaasadda gobolka iyo sidoo kale marxaladooyinka gobolka Waqooyi ee gobolka Soomaaliyeed Waqooyi Bari Kenya ka taagna. maanta waxaan dul istaagi doonaa xiisadda ka taagan gobolka Waqooyi Bari Kenya khaasatan ismaamulka Mandera oo xadla dalka Soomaaliya ee Balad Xawo oo labadii bishani March uu ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeyay ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka. laakiin waxa jirtay dagaalkaasi kadib markii laga iitaal roonaaday ciidamada Jubbaland oo soo baxsaday dhankani Kenya ayaa waxa jirtay cabashooyin kala duwan ay jeedinayeen hogaamiyaasha madaxda oday dhaqameedyaasha iyo culimada diinka iyo sidoo kale shacabkaba inay walaac weyn ka muujiyeen dhibaatada halkaasi ka soo gaartay. waxa jirtay ama la leeyahay dhibaatooyinkaasi Mandera maanta ama iraahdii soo gaaray ama saameynteeda ay soo gaartay ayaa waxyaabo badan ay xirxirtay siba dhanka dhaqdhaqaaqa ganacsiga, amniga guud iyo sidoo kale waxbarashadii ayaa guud ahaan curiyamtay kadib markii ay dhibaatooyinkaasi ay ka dhaceen Balad Xawo iyo Mandera dhexdeeda markii ay ku dagaalameen ciidamada Jubbaland iyo kuwa federaalka. hasi yeeshee qaylo dhan fara badan oo ay ka muujiyeen madaxda dhibaatadii halkaasi ka dhacday ayaa waxa weli la leeyahay wax laga qabtay malahan. waxa jirta in hogaamiyaha ciidamada Jubbaland aan iraahdii ama Cabdirashiid Janan oo dawladda federaalka Soomaaliya ka soo baxsaday ayaa hadda wuxuu ku sugan yahay gudaha Mandera isagoo dhaqdhaqaaqyo ciidan halkaasi ka wado taasoo cabsi weyn gelisay shacabka ismaamulka Mandera khaasatan magaalada Mandera dadka ku nool taasoo markii dambe sababtay in xitaa ay dhibaato ka soo gaarto shacabka deegaanka iyagoo ka barakacay guryahoodii khaasatan xaafadaha sida Bula Jamhuuri, Carabiya iyo maxaan ku yiraahdaa Belgiumka oo u dhow xaafada ama iraahdee xuduudda Soomaaliya iyo Mandera ayaa gabiyaanba ka soo cararay. waxaana la sheegayay inay u jiheysteen dhankaasi iyo degmooyinka koonfurta magaalada Mandera khaasatan sida Ramu, Takaba, Banisa iyo sidoo kale waxa la leeyahay dhankaasi Ceelwaq ay sidoo kale dadka u jiheysteen si ay uga fogaadaan dhibaatada halkaasi ka soo wajahan. waxa jirta su'aalo fara badan oo ka soo baxayo xiisadda ka taagan gobolka Waqooyi Bari Kenya oo la leeyahay dawladda Kenya naftinkeed ayaa halkaasi abaabul iyo maxaan ku yiraahdaa dhaqdhaqaaqyada ciidamada Jubbaland gacan ku siinaysa iyadoo wala tus ku sameynayaan ciidamada Jubbaland wadooyinka gudaha Mandera. waxa jirta su'aalo iska soo daba dhacayo maxaa keenay dhibaatada noocaani ah in ay haddani Mandera la soo diristo dawladda halkaasi mas'uulka ah oo ah dawladda Kenya maxaa xal ay u haysaa.
intaan usoo laabanin intaan usoo laaban doono kulli su'aaladaasi idinkoo ka qayb qaadanayo barnaamijka qadka telefoonkan uu idin furan yahay balse waxaan doonayaa in aan marka hore saaro warbixin muujinayso barakaca dad qaar ee ka barakacay magaalada Mandera iyagoo ka cabsanayo in xiisado hor leh ama dagaal hor leh uu ka dhex qarxo ciidamada dawladda federaalka oo abaabul xoogan wado iyo sidoo kale ciidamada Jubbaland oo la sheegay in barihii dambe lagu soo dabuulayay gudaha Mandera halkaas oo ay gaariyaha gaashaaman iyo sidoo kale kuwa dagaalka oo lagu qiyaasay ilaa 26 gaari ayaa la sheegay inay halkaasi dhoolatus ku sameynayeen waxaaba kaaga sii daran waxay sii degan yihiin xirada ciidamada Kenya ay ku leedahay Mandera meel ayada u dhow ayaa la leeyahay in halkaasi ay xiisado hor leh ka soo muuqato sidaas darteed shacabka ayaa waxay bilaabeen inay gabiyahaanba ka cararaan xaafadahooda iyo guryahooda oo hadda naqtay qaxooti ayay magaaladoodii ama ismaamulkoodii ku naqteen warbixintan ayaa nooga waramaysa halkani waa xaafadda Buruburu ee ku taala magaalada Mandera waxay ahayd xaafad mashquul badan balse hadda way huwanaysaa kadib markii dadkii degnaayeen ay isaga carareen wixii ka dambeeyay dagaalkii dhexmaray ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda xaafadda ayaa hoy u noqotay xabadaha wiiftada iyo kuwa aanan loo aabayeelin xabadahaas iyo madaafiicda ayaa saameyntooda meel walba ka muuqata iyagoo sidoo kale meel walba daadsan ka soo safraa imid dagaalka shalay maana daraad horteedu u dhacay ana shalay baan soo galay markaan soo galayna waxaan u imid gawaari oo xaafadeeda lagu gubay iyo dib meesh ka dhacay oo dad qaar xataa diriska aan aqaan meesh ku dhaawacmeen markaan imidna xaafadoo dhan lama digano dadkana arkaysaan waa dad maaragtaa hadda iyagana oo macnaha wada ku safraay raasanayo oo magaalada ka safri rabo waxaana loogu safraa magaalooyinka u soo dhow baa loogu safraya boosteejada laga raaca baabuurta Raamo iyo Ceelwaaq ayaa la circiraysa dad barakacyaal ah oo doonaya inay ka cararaan mushkiladda ka tagan magaalada Mandera dagaalka ayaa saameeyay dhinac walba iyadoo waxbarashada qaasatan iskuulada ku yaala xuduudda ay yihiin kuwa ugu badan oo dhibka soo gaaray waxbarasho kama socoto iskuuladani oo waxa ilbaabada la isugu dhuftay iskuuladani ana kareer Mandera haddaan ahna waa qaxna waa rafaadne marka hor busla u qaxna haddana busla waa laga sii qaxay waa linka dab yimada la yir buuraha qori lidin soo saartay waa sii buurne Raamo ay baanisa loo kala socdaa ee suuftu marka wadankan inaan qaxooti ku noqono maxaan baday anaka maxaa dad Jubbaland ka soo qaxo siyaasad isku haasta maxaa noo keenay wadankan inuu ugu xasuuqa dawladda ismaamulka Mandera iyo maxkamadda deegaanka ayaa ku dhawaaqay in shaqo joojin galayaan ilaa xaaladda amniga magaalada soo hagaagto shacabka ayaa dawladda ku eedeeyay dhibaatadan oo idil ay mas'uul ka tahay maadaama ay yiraahdeen ay soo dhaweysatay wasiir baxsadka ah ee Cabdirashiid Janan madaxdayna waa hadashay waa calaacashay qof war ka qaadana waa waysay hadda anaka shacab ahayn oo anaka Kenya ana xaq ku lahayn hanaloo soo sheega an ka qaxna si fiican marka intaas aan ku ekeynaa anaka qaxootiyan nahay ilmo galaas deegaadaan qabna ilmo foonfoon qabna macallin ma haysano horaana nagala aruursade dhakhtarin horaana nagala aruursade haddana olaan loogu dare ol hada loogu dare muxummee security macallimiinta ay loo waay dhakhtarinta ay loo waay inta kale aan loo hele inta kale ciidankayna sabootina ciidanka Kenya la jir anaka aragno maragay marqaatu jeeshkayna sabootina oo la jir marka Kenya hadaba maanta nin Jubbaland ka soo gooste asnaga xaq banaado la ilaalina oo anaka xaq qaban dawladda Kenya waxaan ka galabsanay hanoo soo sheegto joogista ciidanka Jubbaland ayaa walaaciyo cabsi badan ku abuurtay dadka deegaanka iyagoo ka baqay inuu dagaal mar kale qarxo ciidamada Jubbaland ayaa la arkaya iyagoo aad u hubaysan oo dhaxmaraya jidadka waaweyn ee magaalada Mandera أحمد عبد الرشيد حاجي RTN Mandera kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Mandera oo barakac ka muujiyay dhibaatada ka taagan ama xiisada ka taagan magaalada Mandera ileen weligood ma ay arkin dhibaato noocaas ama iraahday ciidamo saas u abaabulan oo gawaariyaal gaashaaman iyo kuwa dagaalka wato sidaas darteed waxay danta ku qasabtay marka inay cabsi badan muujiyaan iyagoo ka cararayo hataa wararka soo baxaya ayaa la sheegayaa in halkaasi dagaalkii maalin hore ka dhacay
ayaa la sheegayaa in ay ku dhaawacmeen ugu dhawaad 4 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen oo kamid ah dad rayid oo kamid ahayd gabar yar oo hadda lagu qiyaaso inay tahay ilaa 4 jir ama 5 jir meelahaasi xabada wiiftada ayaa hooy u noqotay xaafadaha u dhow ee magaalada Mandera ee xadka Soomaaliya sidaas darteed waxaa jirta marka in shacabka deegaanka Mandera miraahda magaalada Mandera ay bilaabaan barakac iyagoo ka cabsi qabo in dhibaatada ama dhaawacyo waaweyn iyo sidoo kale khasaaro oo markii horeba hadda soo gaaray in mid taasi ka xad ballaaran ay soo gaarto waxaana la leeyahay saansaanteeda way muuqataa waayo sida ay u muuqato ama sida hadda aad ka daawateen shaashada waxa muuqday gawaari ay ku raran yihiin ciidamo iyo qoryo waaweyn ee dhabarka gawaaridaasi lagu xiray oo la oran karo in ay dhibaato ballaaran gaarsiin karto deegaanada halkaasi ka dhow haba ahaatee dhanka xabadaha wiiftada ah laakiin hadda waxaa jirta sidoo kale maalmihii u dambeysay xiisadani waxa sidoo kale sii kordhiyay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo ballaaran soo tubtay ama soo tuurtay xadka beled xawo iyagoo gabi ahaanba isku fiidiyay xadka Kenya iyo Soomaaliya oo u muuqato inay dagaal isu diyaariyeen hadda dhaqdhaqaaqyada laga wada magaalada gudaha Mandera oo ay wadaan Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisa oo la sheegayo sida ay warbixinta kala duwan ay sheegayaan in ciidamada Kenya ay taageero u muujisay ciidamada Cabdirashiid Janan oo hadda sida shaashada idinka muuqdo waxa la leeyahay wadadani ay ku socdaan waa wadadii aadaysay xerada ciidanka militariga Kenya ee meel u dhow xuduudda Soomaaliya ay degan yihiin taasoo sidoo kale walaac weyn ku abuurtay dadka deegaanka iyo sidoo kale madaxdaba maadaama ay u muuqato saansaanta halkan ka muuqato inay tahay si hurinta colaadani oo u muuqato in dhibaato weyn ay gaarsiin doonto shacabka beled xawa iyo sidoo kale shacabka magaalada Mandera laakiin arinta walaac weyn keentay ayaa madaxda reer Mandera iyo shacabkeedaba qaylo dhan ay ku daaleen tan iyo markii ay dhibaatadani soo dhacday ama iraahday tan iyo markii Cabdirashiid Janan uu dawladda federaalka ka soo baxsaday xabsigeeda uu joogay ma ku dhulmaysanayay gudaha Mandera uu ka degnaa hotel madaxda Mandera marar badan ayay arintani walaac ka muujiyeen iyagoo ka codsaday Cabdirashiid Janan inuu isaga baxo magaalada si shacabkooda uusan dhibaato u soo gaarin sidoo kale waxay ka codsadeen madaxda dawladda in ay arintani wax ka qabato ay soo farageliso barta Twitter-ka ee Governor Roba amiirada ismaamulka Mandera Ali Roba maalin hore wuxuu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in uu sheegay in xaaladda Mandera ay u muuqato mid faraha ka sii baxayso iyadoo ay jirto ciidamada Jubbaland ay halkaasi ciidamo fara badan soo dhoobtay ay sidoo kale gaari waaweyn ay halkaasi keensadeen oo dagaal kula geli rabaan ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan sidoo kale sheegay in dhanka dawladda federaalka ee beled xawa iyaguna u muuqdaan abaabul weyn inay wadaan oo ay kaga hortagayaan ciidamada Jubbaland oo haddana farsimo ka dhigtay gudaha magaalada Mandera arintani ayaa imaanaysa marka maalin hore madaxweynaha dalkani Kenya wuxuu dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay ku soo xadgudubtay madax banaanida dhuleed iyo sharaftii dalka Kenya iyagoo halkaasi uu sheegay inay ku burburiyeen khasaaro dhan maal ay leeyihiin shacabka reer Kenya ula jeedo shacabka Mandera iyo sidoo kale inuu sheegay in halkaasi khasaaro nafeed ay ka dhalatay laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ama inta badan isla dhaxmarayo haddii uu ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya inay soo faragelisay arrimaha Kenya ma yiraahdee madax banaanida Kenya hadda ciidamadani shisheeya oo aan ahayn ciidamo Kenyaan hadda shaashada idinka muuqdo waa ciidamo ka tirsan ciidamada federaalka Soomaaliya oo dagaal kula jiro dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya maxay tahay sababta ay Kenya ay u leedahay waxaan ugu lahayaa ama faragelin ayaan ugu lahayaa halka iyadu maanta u muuqdaan in ay abaabulayaan ciidamada Jubbaland halka ay ahayd inay nabad raadiso oo ay labada dhinac isku soo dhaweyso Kenya waxay qayb weyn ka qaadatay dhismaha maamulka Jubbaland sidoo kale waxayna saameyn ballaaran ku dhex leedahay siyaasadda Jubbaland waxay ka mid tahay ama iraahday waxa hormuud ay ka ahayd dawladihii hormuudka ka hay uloloynayay in la aqoonsado ama la ogolaado doorashadii Axmed Madoobe oo maalin hore uu isku doortay sanadkii tagay magaalada Kismaayo inkastoo dawladda federaalka Soomaaliya ay gaashaanka u tuurtay arintaas oo tiri inagu wax aqoon uma leeyihiin doorashadaasi maadaama ay sharciga iyo dastuurka ay halkaasi gabi ahaanba ka maqneed laakiin inkastoo ay jirta cabashada Kenya ka soo baxday haddana waxa jirtay in
madaxda ismaamulka Mandera oo shalayto war saxaafadeed ku qabtay magaalada Nairobi tanayto iyagoo fariin u farayay dawladda Kenya ay ka codsadeen inay diyaar u yihiin inay dawladooda garab istaagaan balse sidoo kalena garab istaagidii dawladoodii ayay sheegeen inay hadana dhibaato ayagii naftinkooda u keentay maadaama ay halkaasi dhibaato fara badan ku soo gaartay shacabka ismaamulka Mandera hasi yeeshee waxay weli ku doodayaan ay dawladda ka codsanayaan in arrintaani ay soo farageliyaan waayo waxay mar waliba doonayaan in ay ka shaqeeyaan maslaxada shacabka iyaga soo doortay oo matalayay haddii ay wax ka qabayeen waxay u yeelaysaa iyagu suura xum ama ilaahdee magac xumo ay dhabarka u saaraysa haddii ay iyagu waxba ka qaban waayaan dhibaatada maanta ka taagan ee magaalada Mandera oo shalayto u muuqato hadda muuqaalka adeen u dambeeyay ayaa ahaa in ciidamada dawladda ama ciidamada Jubbaland ay dowlatus ciidan ku dhex sameynayaan wadooyinkii magaalada Mandera taasoo ay shacabka argagax ka muujiyeen taasoo ku qasabtay in shacabka qaar ay u jihaystaan koonfurta deegaanada Mandera sida Takaba iyo Ramu iyo ilaa Bani ilaa Qofoole ayaa laga dhacayay wararka qaar dadka wayba si dheeranayaan Qofoole waa meel andhaweyn oo jirto dhankaasi iyo waqooyiga Wajeer ayay xad la leedahay laakiin marka la fiiriyo dhul ahaan ilaa intiga isu jiraan waa dhul aad u fog cararkaas intaas la eeg waxa la oran karaa waa nasiib darro aad u ballaaran lagu tilmaami karaa sababtoo dad deegaanadoodii ka cararay iyagoo waliba dawlad dhisan leh dawladda maanta lagu tilmaamo dawladaha Afrika uga quwada weyn uga saameynta badan dhan siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed in maanta shacabkoodii ay ka cararaan guryahoodii iyagoon waxba kalabsanin ayaa waxa la leeyahay arintaasi dib weyn ay ku haysaa laakiin waxa jirta warbixin ay shalay ay sameeyeen ama ilaahdee warbaahinta ay kula hadleen madaxda ismaamulka Mandera saxaafadda Kenya ayay ku sheegeen ama ka codsadeen dawladda in arintani ay soo farageliyaan iyagoo ka codsaday in xaaladda ay tahay mid faraha ka sii baxi doonto oo qasaaro hor leh keeni doonto warbixintani ayay shalayto war saxaafadeedka ka horjeediyeen madaxda Mandera madaxda gobolka waqooyi bari Kenya siba madaxda ismaamulka Mandera ayaa walacbin ka muujiyay xiisada ka taagan xadka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo isku hayaan ciidamada Jubbaland iyo kuwa federaalka Soomaaliya barasabka ismaamulka Mandera oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dibka ka taagan sidoo kalena ka socda Mandera uu muuqdo mid aan la sahalsan karin wuxuuna dawladda ku eedeeyay inaysan dhig bajlaq u siinin cabashadooda isdaba jooga ah leo tumekuja hapa tunataka kuuliza serikali maanta waxaan halkan u imaanay inaan dawladda u sheegno inaan garab taaganahay laakiin taageerada dawladdeena waxay noo keentay dhibaato weyn maadaama aan nahay hogaamiyaasha shacabkeena waa inaan sidoo kale ka talinnaa maslaxada shacabkeena inatuweka mahali pabaya ya kuweza kuangalia balance ya kusimama na serikali yetu na kuangalia maslahi ya umma ambao wametuchagua kama viongozi wa county ya Mandera barasabka ayaa markale dawladda Kenya ka codsaday wax ka qabashada dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka wadaan ciidamada Jubbaland gudaha Mandera iyadoo dhankaasi kale uu sheegay in shacabka Mandera ee degan xaafadaha u dhow xuduudda Soomaaliya ay bilaabeen barakac kadib markii ay ogaadeen xiisadaha ka dhexeeya ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa Jubbaland oo gacan ka helayo Kenya inay tunataka kuchukua fursa hii kuweza kuelezea serikali yaliyotukumba ni mambo ambayo ni magumu zaidi waxaan fursadani ugu baaqaynaa dawladda inaan ogeysiino waxyaabaha dhibaateynayo shacabka waxay ka carareen guryahooda ee magaalada Mandera waxay ka soo carareen guryahooda hadda waxay noqdeen qaxooti na sehemu zingine ambayo inapakana na Somalia na wamewacha manyumbani kwao na sasa hivi wamekuwa ni watu displaced hadalka barasabka ayaa imaanaya iyadoo maanta ay warar sheegayeen in shacabka magaalada Mandera qaarkood ay bilaabeen barakac iyagoo u jihaystay dhanka degmooyinka koonfurta magaalada Mandera sida Takaba Ramu iyo Khalaliyo kadib markii ay arkeen ciidamada Jubbaland oo gawaarida dagaalka oo aad u fara badan oo la tusku dhex samaynayo wadooyinka magaalada Mandera barasabka Mandera ayaa shalay bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in xaaladda magaalada Mandera ay sii xumaanayso iyadoo dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ciidamada Jubbaland ka dhex wadaan gudaha magaalada Mandera halka dhinaca kalena ciidamada dawladda federaalka ay u muuqdaan inay si weyn isu abaabulayaan wuxuuna dawladda Kenya ka codsaday in laga hortago khatarta soo wajahan si looga badbaado dhibaato hor leh si kastaba ahaatee madaxda waqooyi bari Kenya ayaa dhammaantood isku raacsan in xiisada ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya iyadoo ay u muuqato in madaxda Mandera oo kaliya ay qaylo dhan ku daareen
xamse maxamed RTN Nairobi. kuwaasi waxay ahaayeen madaxda ismaamulka Mandera uu hogaaminayay governorka ama barasabka ismaamulka Mandera oo shalay cabasho ka muujiyay daawade barnaamijka waa Hello Waqooyi Bari Kenya qadkana uu adin furan yahay adinkoo ka soo qayb qaadanayo barnaamijkeena ee ra'yigani ka dhiibanaya ama ra'yigiina ku saabsan xaaladda ka taagan gobolka Waqooyi Bari Kenya khaasatan ismaamulka Mandera haddii aan siiyo daawadayaashan ugu horeeyo oo qadka telefoonka noo soo galay السلام عليكم. وعليكم السلام والله كسر أول برنامجك ماشي أنا قصو وعيسيت إيو برنامجك هدي الله سعتي. مقعد عبد الرحمن وحنا قصو عيا مقعد قريصة. نعم. برنامج كصيف أنا ولا صعبة. واقرت. هذا كدي تفكر كيجا وحواي دولة كينيا أيا تاجر يساعد مدى جوبلاند. سومالي دا قول كوخوي بران دبكو قوان. عاديات. هذا في رسول هذا عندما جوبلاند أيا وريجا أيان مجال منديرا. شعب كينيان كأو جوجي مجال منديرا ويقحايا. عاديات. وحي وقحايا إنه وعررايان محاواي عندما جوبلاند إلى هاي أيا كجرا مجال منديرا. واقرت. أنا هان وحنو أركاد دولة كينيا إنه جوجسو تاجرا يوم جلسو عندما جوبلاند. مدحدا منديرا وباقي أدرت دولة كينيا. أدينك reer waqooyi bari Kenya ahaan ma ku qanacsan tihiin qayla dhankooda ay muujiyeen oo ka codsadeen dawladda in arrintan ay wax ka qabato madaxa barasabka ismaamulka Mandera shalay uu hadlay dawladda Kenya wuxuu u baaqay inay wax ka qabtaan ciidamada Jubaland oo ku sugan Mandera aadiyad laakiin dawladda Kenya waxba kama qabanayso ilaa hadda waxba ay ka soo saarin ilaa shalay darrad ciidamada Jubaland ayaa wareegay Mandera saad hadda daawanayna waxaan arkay dadkii reer Mandera oo deganaa buulooyinka way qaxayaan aadiyad hadda Kenya dawladda Kenya say ka rabtaa shacabka Kenyaanka waa gartay waa su'aasha isweydiinta mudan oo looga baahnaa in dawladda Kenya ay aniga waxaan u arkaa Soomaalida joogto Mandera inay dhibaato aad u weyn haysato sababtoo ah dhinac waxay la dagaalaysaa ciidamada Jubaland oo soo galay dhulkoodii dhinacna dawladda Kenya ay cashuurta siinayeen ma difaacayso aadiyad aniga ahaan waxaan u arkaa taas inay qalad aad u weyn tahay aad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan sida barnaamijku uga qayb qaatay iyo sidoo kale ra'yigaaga ku soo dhawow barnaamijka waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan oo naga soo wacay ismaamulka Garissa wuxuuna sheegay in dhibaatada ka taagan gobolka Waqooyi Bari Kenya khaasatan xiisada ka taagan Mandera ay tahay mid aan loo dulqaadan karin wuxuuna dawladda Kenya ku eedeeyay arrintaasi inay dhigaha ka fureysatay daawade barnaamijka qadkiisa telefoonka ayaa furan sidoo kale waa ka soo qayb qaadan kartaa adigoo ra'yigaada ka dhiibanayo xiisada ka taagan gobolka Waqooyi Bari Kenya khaasatan xadka Soomaaliya iyo Mandera haddii aan siiyo daawadaheena kale xigo السلام عليكم كسر دو برنامجك يو حلقة نقصو بعيستي ومقعاقة السلام عليكم وعليكم السلام والله البرنامجك و مقعاقة يو حلقة نقصو بعيستي هلو هلو كاسي وحوقها ميد كميدة داودياشن ميد كحيق هديان سيو نعم السلام عليكم كسر دو برنامجك والله magacaadii halka naga soo wicisid وعليكم السلام وكل هاي waxaan ka soo wacay magaalada Muqdisho gaar ahaan Soomaaliya waxaan ka soo wacay gaar ahaan Muqdisho wallahi hadda waxaan daawanayay muuqaalka marka hadii waxaan aragtay aan ila muuqata hadii Kenya ay maxaan ku raadayay caawimaad Jubaland ay siinayso hadii ay xoogaa yarayso waxaan isleeyahay xalka sidaan wax uu iska bedelayaa laakiin waxa muuqata inaysan Kenya hadii marba aysan hadalay waxba aysan ka soo saarin taasi yani waxay ka dhigan tahay ay muujinaysaa inaysan badan iyo xaaji wax la yiraahdo inaysan ka lahayn dabcan barnaamijkan inuu sii socdo dan gaar ah inay ku qabtaan ahaan ila tahay waxa waa muhiimad gaar ah ay ugu fadhiso marba hadii dadkii ayada cashuurta ka qaadaysay dabcan ay governorna u leedahay governorkeedii xataa oo wixii tixgelintiisii loo muujin lahayd oo hadalkiisii dabcan oo wax looga soo qabo wax ka soo qaaduusan lahayn dabcan waxaan leeyahay Kenya waxa masaalix kale oo gaar ah ugu jirta waa gartay laakiin Soomaalida dhexdooda
adiga maadaama iga soo wacday magaalada muqdisho maalin hore waxay jirtay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku eeday Soomaaliya inay ku soo xadgudubtay Kenya haddana waxay jirtaa in ciidamada Jubbaland naftinkooda ay diris la yihiin ciidamada Kenya waliba gudaha magaalada Mandera oo Kenya ah taasi marka maxaa laga oon karaa maxaa la dhihi karaa arintaas ورونو هرتادي طبعا تاس وجرتا حتى واحد جرتي وفي قارة مشاعر مقدسة يمين أجر حتى waxa ka horeysay arimahaas arimo badan oo tacdiif fara badan oo Kenya ay Soomaaliya u geysatay haddana inaan la iska qabanaynin xitaa waxa jirtay xuduud xitaa ay soo jarteen oo si xoog ay ku soo galeen ay jirtay waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin fara badan oo yaani aan laga qabsan karin ay ku dhaqaaqayso marka Soomaaliya dabcan waxay intaas bay xeerinaysaa yaani u shibantay waa aamusan tahay dabcan isma dhahay muddo yaraahays marba hadii dadiyaro iska Malaysia waxa iska hadii ay u taaglaadahay dawladda Soomaaliyeed meel iska ma saari kartana misarahay waxa wali Soomaaliya laakiin waxay u xeerinaysaa u fiirinaysaa deris wanaaga iyo waxa naga dhaxeeyay intaas iyo diblomaasiyad ahaan ay u fiirinaysaa laakiin meesha ayadu waxay ka aragtaa inay Soomaaliya ayada dhaxdeeda anaga cudurkan haysta waxay tahay waa qabyaalad iyo kursi jacayl qof waliba waxa waaye wuxuu rabaa masaalixdiisa gaarka ah inuu dadka ka dhaxaqiijiyo ma jirto marka qof danta dadka u shaqeynaya ama u taagan ma jirto okay aad u mahadsantahay walaal shaqaaqaday نعم هذا أم حسن تهي سلا برنامج كوخ بقاته وكم حسن تهي أركتي هذا يو فكرة دات كدي بتي حسد كتاعن هدي سيو قفكا سد هذا مقاط كان وجرو نعم السلام عليكم كسر هو برنامج كا حال مال حال كان جالس هو عيسى اليوم مقع هذا وعليكم السلام مقعي وعبد الله جوجا مقالة منديرة هذه عن كذا ما تقدر تشتى مرتو إذا ماذا كينيا منديرة يخوات ذو لا عين يهودي بين الدين يخوات الصومالي مان أنت وصل كينيا ترى ما يروح لها صح دولة الصومالية وها ويجي كليرين لو بيصير وضع كينيا إذا ما جبلان وحلو بيصير وضع كينيا كلا أنت الصومالي ده أيضا جبلان فرق لو في خيارات كذا ما وصح sida marka waxa leedahay in Kenya naftinkeeda ay faragelin ku hayso Soomaaliya iska cad faragelin kuma hayso ila dhistay Soomaaliya ila dhistay Jubbaland ila sanadkan ay sulka marka iyada ka arrimin karto wixii mataqaanaa baasi ila in Soomaaliya ay ka helayso ciidamada igid gooni iyo wax gooni waxay ka arrinsan karto laakiin inta ka horeyso in mataqaanaa Kenya laga amar qaato waa wax waajib mataqaanaa saaran dadka Soomaaliya Abdullahi adi Mandera ayaa joogtaa waxaadna sidoo kale ku matalay madaxda Mandera oo marar badan ka hadlay arrintaani qayla dhankooda oo ay usbuucyadan dhan wadeen ilaa hadda dawladda dhexe ee Kenya waxba ma aysan ka qabanin welina waxa muuqata in ciidamadii ay halkaas si dhex mushaacayaan adiga ma ku kalsoon tahay tilaabooyinka ama sida ay uga hadlayaan arrintaani ama baaqooda madaxda Mandera say kula muuqata madaxda Mandera ay ku sheegayaan markii hore markay ciidanka Kenya Soomaaliya galiyeen ka cilinaayeen ma tahay aadiyad maadaama ay ka hadin maanta mataqaanaa waxay uga hadlayaan waxa way kulli ninkan hadda janab ay mataqaanaa diiday inuu masjidka ciidanka Kenya inay galaan Soomaaliya اوكي هذا ومحسن تهي عبد الله سيدا uga qayb qaatay barnaamijka kaasi wuxuu ahaa عبد الله oo naga soo wacay magaalada Mandera wuxuu sheegay ama waragtidiisa ka dhibtay ahayd in ciidamada Kenya ay dhiseen Soomaaliya iyo Jubbaland sidaas darteedna uu sheegay in ciidamada maanta Mandera dhex mushaacayo ay yihiin ciidamo ay Kenya iska leedahay balse uu sheegay in arrintan ay ahayd in Kenya ay soo dhaxgasho khilaafka ama xiisada ka dhax taagan Jubbaland iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ay xal u raadin lahayd iyadoo xiisadaasi la dejin lahaa sidoo kale wuxuu leeyahay ma ahan madaxda Mandera cabashadooda iyo baaqyada kala duwan oo bariyihii dambe muujinayeen ma ahan ayuu leeyahay mid ku salaysan daacadnimo balse sida uu aragtidiisa ka dhibtay ayuu sheegay in arrintaasi ay salka ku hayso Cabdirashiid Janan inay ka soo horjeedaan haddii aan siiyo daawadaheena kale ee qadka nooga jiro naam assalaamu calaykum ku soo barnaamijka walaal magacaadi halka naga soo wacaysid وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ما كسر هو برنامج كل المجا عادي هل كان نقص وعيسى؟ حمزة وكو سلام ومحمد وجه مقالة وجير. كسر هو برنامج محمد. حمزة ورمتي أرنت عن مكان أنا أول بوفير. أنا هي محمد ثاني شخصيا أنا نسيا. تبقى بركة كسر على المديرة، تبقى كسر على كينيا، تبقى كسر على صوماليا. تبقى كسر على كيسمايو أو صوماليا كتير. إن أي
inay horseed u yihiin madaxda Kenya oo laga soo doortay weliba gobolka Waqooyi Bari Soomaalida aad iyo aad qaasatan ninkan aadan barre ducaale aad isku dirahay Soomaali iyo Kenya Kismaayo iyo Soomaali aad isku dirahay haye tobanka sano oo soo dhaafno aadan barre ducaale ay xildhibaanka waxaan iftiin dad mugdi ku jira oo iftiin u soo baxay aad iyo aad waan aaminsaneen waa gartay si baad nuga gaaminay waa gartay gadaalkan dambe aadan barre ducaale Soomaalida noodistana gud guridaya Kenya aad qalqal guridaya Soomaalida naftinkeeda laba qaybood aad ka kala Kismaayo aad gud gurida tan aad gud guridaya adeed waxaa jirta xiisada ka taagan Mandera maanta waxa la leeyahay madaxda gobolka Waqooyi Bari Kenya guud ahaan way u kala qaybsan yihiin qaar kamid ah waxay taageersan yihiin waa jirta kuwa yar oo adii waxba la sheegay lahayn adeed ayaa bargakii aad taageersaneen ma intaan kale dagaalka ay ku jiraan dagaalka ay diyaar u yihiin laakiin maxay uga qayb qaadan la yihiin amirahde dawladda Kenya cabashada reer Mandera maxay ilaa hadda u tixgelin la yihiin waxba looga qabanin ay maalin walba ciidamada Jubbaland halkaas u joogan dawladda Kenya marka ay madaxdii wajeer Mandera laga soo doortay gaaras ay qayliyaan ay talaabo qaadeen haye madaxdii ay ka wadab ku wad aad barnaamijka shalay Kismaayo u tagay oo Axmed Alanzar gidi joog shalay Kismaayo la fadhi galbeedka wajeer imbiga laga soo doortay qolosh laba meelood buu ku jiray waa gartay sabab barka ninkaas ay aniga masuugay inaad barkaas wajeer ama badbaadina Mandera waan kalena waa lamid safiican ana waxaan aaminsan yahay madaxdan gobolka Waqooyi Bari laga soo beeray oo ilbaxday aadan barre ducaale gaaminay walaalayaal oo macaan oo wadanka inaad burburinin Soomaali aad burburinin aad turtaan ammaanka gacantiina ku jira aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed walaal kaasi wuxuu ahaa Maxamed oo naga soo wacay magaalada Wajeer wuxuu leeyahay in maamulada amirahde madaxda gobolka Waqooyi Bari Kenya ay arrintaani isku khilaafsan yihiin halka kuwa yar uu sheegay inaysan taageersaneen dawladda Soomaaliya la dhanac la amirahde ay taageersan yihiin tilaabada maanta ka jirta ama xiisada ka jirta maanta gudaha magaalada Mandera oo la arkayay in ciidamada Jubbaland ay halkaas dhex mushaacayeen iyagoo wax baqdiin xitaa aan qabin wuxuu arrintaani ku eedeynaya Maxamed ee gobolka Wajeer joogo in ay ahayd in loo turo shacabka labada dal oo aan Kenya la burburin sidoo kalena aan la faragelinin dawladda Soomaaliya oo iskeeda dawladnimadeeda u wadato sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday in ay jiraan dad khaas ah uu sheegay ka qayb galay cali masaarkii Axmed Madoobe oo haddana ka aamusan arrintaani oo ahayd in ay ka hadlaan sidoo kale dhibaatada ka taagan maanta xiisada ka taagan Mandera wuxuu leeyahay dawladda Kenya waxay uga aamusan tahay arrintaani waxaa la sugayaa in cabasho ka soo baxda dhankaasi ismaamulka Gaarisa kadib ayuu sheegay in arrintaasi kadib ay dawladda ka hadli doonto haddii aan siiyo mid ka mid ah daawadayaashana sidoo kale qadka igu jiro naam assalaamu calaykum ku soo dhawaaw magacaadii halka naga soo wicisid السلام عليكم وسعيد باهر آديات عن كاسوايا هولن كسر دواء برنامج عندك يسني نكي يوري ويرك حتى كسي يوري هو يرسي منين جابك قعنت كل جرة حتى تكون قبضت جابك قعنت النب كل جرة هذا أديك أسيق ما قلدني لكن أسيق غلطان آديات كي جابك سومالي قعنت كل جرتها وأنا لا لقبت horta mid waan ka xumahay waana ka tacsiyeynaya dadka meesha ku baaba'ay oo labada dhinacba Soomaalidu waxay tiraahdaa ka dhimay kuwa dhimay waa gartay labada dhinacba waa Soomaali laakiin waxa isku diraya waa Kenya waa gartay Kenyana Soomaaliya ba iska leh sax dadka reer meesha degan waxaan kula tarin lahaa inaysan aqbalin in dhexdooda loogu soo duulo Soomaaliya sax taasina waxay cadeynaysaa haddii looga soo duulo dhibaatadii ku timaada inay yihiin iyaguna kuwa iyagu wax ku leh maxaa yeelay ninkii gurigaaga dhexdiisa ka tuura dhagax haddii adigana midka lagu soo tuuro qalabka ninka kugu soo tuura ma lahan laakiin adigii gurigaaga ogolaa in debka laga dhex tuura qalabka iska leh waa dhag marka
marka waxaan ku talin lahaa dadka meeshaas degan inay sameeyaan kana foojignaadaan dhibaatada lala damacsan yahay aad iyo aad oo in gurigooda la gubo Soomaaliya way soo kabatay Soomaaliya yeeli mayso in lagu soo xadgudbo waana ka xunnahay dhibaatada dadkaas loo geysanay inay qaxaanna waa ka xunnahay haddana sidaas aligeed yeeli mayno in Jubbaland ay u adeegsato Kenya siday rabto aad iyo aad u mahadsantahay anagoo markii hore taba diidanayn dadka Soomaalida oo meesha degan ay soo ku haystaan ay haddana isku dayeen intii dhammaanad inay ku darsadaan hooyada qaxaysa oo ka qaxaysa meeshaas waxaa sababteeda iskala aadan ducaale wuxuuna sababteeda ku leeyahay asagoo matalaya ayuu fiirsanayaa Cabdirashiid Gaal oo magaalada dhexdeeda wadooyinka dhex maraya Soomaalidu waxay tiraan ninku dila harkuuma jiido waa sax dadka meeshaas degani ninka noocaasa ku fiirsanaya oo ilaa intaad sheegaysa ay sii qaxayaan waxaan kula talin lahaa inay kula xisaabtamaan doorashadii iyo xilka u dhiibteen aad iyo aad u mahadsantahay walaal kusoo dhow barnaamijka iyo aragtidaada waad ku mahadsantahay haddaysan taa ka waantoobin oo dhexdooda lagu soo duulo haddee waxaa waaye mudul gubta kama dhax Soomaaliya marka hortaba dawaa ka shidnay dadka meesha degan ayagaa nabad haysta nabadooda ha ka fakareen iyo Soomaaliyana waxaa waaye annagoo sidaas maanta u jajaban oo sidaas u naada ma aqbali doono inay dhibaato u geysato anigu gobolada dhaxan ka soo jeeda saastay tahana xuduudka waxa ka dhacaya waa dhibaya aad u mahadsantahay walaal sida ra'yigaada uga dhibatay barnaamijka ku soo dhawow adaa mudan waana ku xumaa intii dhimatay Allah u naxariisto dadkaas walaalaheen oo qaxayana Ilaahay maaragtay dhibaatada ka dulqaado amiin kaasi wuxuu ahaa mid kamid ah naga soo wacay daawadayaasheena dalka Holland wuxuu leeyahay dhibaatada maanta ka taagan gobolka waqooyi bari Kenya madaxda qaar ee gobolka ka soo jeeda ayaa dhibaatadani horseeday sidoo kale wuxuu leeyahay Kenya ayaa markii hore iyadaba kula jirtay arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo faraha kula jirtay maantana in haddii la iska qabto ama la iska difaaco in ay daandaansi ama waxyaabo kale ku tilmaanto waa khalad ayuu leeyahay sidoo kale waxaa jirtaa tan iyo markii ay 11 xildhibaan ay laga soo doortay gobolka waqooyi bari Kenya ay aadeen magaalada Muqdisho iyagoo la kulmay madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegaya in ay soo baxday baaritaano ay ku wadaan ciidamada Kenya waa warbixino kala duwan ay qorayeen sida wargeysyada Kenya sidoo kale walaalayaal maxay yiraahdaa daawadayaal barnaamijka waqooyi bari Kenya wuxuu fursad siinaya mar walba daawadayaasheena in ay ka qayb qaataan barnaamijkani iyagoo fariin iyo sidoo kale waxyaabo badan u dirsan kara madaxdooda waxa jirta waxa laga yaabaa gobolada qaar ilaa haatan waqooyi bari Kenya in ay xildhibaanadii ay soo doorteen aysan ilaa haddana lug basaareen aysan xitaa ka warqabin dhibaatooyinka haysta bulshada deegaanada iyaga laga soo doortay sidaas darteed barnaamijkani wuxuu mudnaan iyo karaamo siinaya iyo fursad ay kula hadlaan hogaamiyaashooda ay ka soo doorteen degmooyinka kala duwan ee gobolka waqooyi bari Kenya iyagoo halkaani fariimo uga dirayo iyo sidoo kale cabashadooda sidaas darteed barnaamijka Hello waqooyi bari Kenya waxa iska leh adinka reer waqooyi bari Kenya oo iska leh ama fariimo kala duwan ee halkani uga dirayo madaxdeen haddii aan ku soo laabto xiisadda ka taagan gobolka ama ismaamulka Mandera ayaa waxaa la leeyahay dawladda ayaa iska indhatiraysa haddana waxaa soo baxday in maxkamadda Mandera la xiray maxaa isku soo aadiyay in Mandera ay dhibaato ka dhacdo haddana la sheegayo in maxkamadda ka shaqeynaysay Mandera la xiro waxay leeyihiin dadka arrimahani ka faaloodo sababta loo xiray xiisadda ka taagan Mandera ma ahan amni darro meeshaasi ka jirto balse lama ogolo mid kamid ah dhibanaya ama iraahdee eedeysanayaasha lagu eedeynayo inay ku soo xadgudbeen khaasatan ciidamada Jubbaland ayaa la yiraahdaa meeshaas ku sugan hadhow hadii maxkamad la horgeeyo si aan loo maxkamadeyno oo loo soo dhajiyo gooban ku maxkamadeyno ma bahayno annaga Mandera maxkamadeeda waxa iska leh bulshada reer Mandera oo u adeegayso dhibaatooyin fara badan oo ka jirto xaq darro iyo maxaan ku raadin khilaaf ka taagan ayaa looga tiragalay in halkaas lagu maxkamadeeyo laakiin maanta ayaa leeyahay haddana hadii bixiisadani soo baxdo la xiray waxay hagaajinaysaa suurad kale oo ka turjumayso waxyaabo oo aad u falxun oo sidoo kale loo arko in ay tahay in aan diyaaran loo ahayn in dhibaatada ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya wax weyn oo muuqdo aan laga qabanin laakiin
arrintani oo hadda ku soo aadayso marar badan la muujiyay madaxda Mandera ay cabashadooda isdaba joogay maalin walba cabanayaan ayaa haddana waxay u muuqataa in dawladda Kenya ay indhaha ka dabooshay 12 xildhibaan ee tagay Anirahda Muqdisho oo madaxweyne Farmaajo la kulmay markii ay soo laabteen waxaa garoonka ku sugayay ciidamada dambi baarista ee Kenya iyagoo su'aalo dhowr ah weydiiyay iyagoo ka muujiyay walac sidoo kale waxay ku eedeeyeen dawladda federaalka Soomaaliya in ay baal martay sharcigii iyo sidoo kale qaanuunkii u yaalay xiriirka diblomaasiyadeed iyadoo kulmisay shakhsiyaad ka soo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya intaasi kadib waxay aad uga xumaatay ama ay ku tilmaantay in dawladda federaalka Soomaaliya ay faragelin ku haysay sidoo kale waxaa jirta su'aalo badan isla su'aalo ayaa ka dhaxlanaya sida ay sheegtay Kenya iyadoo ay jirto in Kenya ay maanta ciidan ka abaabulayso gudaha Kenya ciidankaasi waliba loo diyaarinayo in ay la dagaalaan ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya adduunku aqoonsan yahay ayaa haddana waxaa jirta ay leedahay haddana waxay jirtaa inay siyaasiyiin mucaarad ku ah dawladda ay marti geliso ay shir u qabato laakiin su'aasha meesha taala ayaa haddii ay Kenya iyadoo sidaasi sameysay oo mar badan ay dawladda Soomaaliya ka codsatay in Kenya joojiso faragelinta ay ku hayso gudaha Soomaaliya maxay tahay in maanta ay ogaato in Soomaaliya haddii iyadana faragelin tahay in ay ka calaan casho taasi waxaa lagu tilmaamaa ama ay dhahdaan dadka qaninja ayaa ka bujisa ayaa la yiraahdaa laakiin anaga ka saxaafad ahaan inagu inteena badan waxa baan soo gudbinaa arrimaha ku saabsan xiisadaha iyo warbixinada kala duwan ee dadka nooga itaalroon arrimahaasi ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadda iyo xiisadaha ka dhex taagan gobolka ayaa inta badan madaxda arrimahaasi u xil saaran ayaan marar walba ku wartagelinaa TV-ga RTN iyagoo ka dhiibanayo aragtidooda iyo sida ay u arkaan xalka barnaamijka Hello Waqooyi Bari Kenya waa barnaamij aan markii hore baadin sheegnay si toos ah uga qayb qaadanaysaan daawadayaashana sharafta leh oo iyagoo halkaani baaq uga dirayo madaxda ay ka soo doorteen deegaanada Waqooyi Bari Kenya halkaani uga dirayo dhanka horumarka amniga iyo waxyaabo walba ay uga baahan yihiin maxaan ku yiraahdaa madaxdii ay halkaasi ka soo doorteen gabagabadii barnaamijka ayaa halkaasi ku eg waxaanu leenahay barnaamijka waa Hello Waqooyi Bari Kenya ku xirnaada barnaamijkani sabti walba markii ay saacada tahay 3 galabnimo idinkoo ka soo qayb qaadanayo telefoonka shaashada idinka muuqdo oo ra'yigiina ka dhiibanayo dhibaatada ka taagan gobolka Waqooyi Bari Kenya khalalaasaha iyo sidoo kale cabashada ay wataan gobolka Waqooyi Bari Kenya in ay halkaani ka soo gudbiyaan waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka Hello Waqooyi Bari Kenya sidaas iyo nabadgelyo